السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتنا خالقة كسو دوادا جانال كيغا امراس هدي جانال كيغا كو عصب تهي سي شرف لي waxaa lagaaga codsanayaa in aad subscribe saarto aadna sii qaybiso asxaabtaada aad gaarsiiso. waxaan halkan mahad ballaaran ugu jeedinayaa asxaab khaali ah oo ila soo xiriirtay oona iigu dhiirigeliyey inaan barnaamijyadeyda aan hore usii wado oo ah janalkan hadda aan dib boorka aan uga qaaday aan soo dhigo barnaamijyo dadka waxtar u ah, aanan cay ku jirin, aanan qabiil aflagaadeys ku jirin, aanan siyaasi gaar ah la ataagaynin, balse aan u dhaxeeyo ummadda oo dhan oo aan jeclahay wixii ummadda Soomaaliyeed la gudboon aan halkan kasoo gudbiyo. waxaana mahaddaas iska leh dhalinyaro badan oo ila soo xiriirtay oo i dhahday brother keep going, horay u soco. alxamdulilah, subscribe-ka hadda meel fiican ayuu marayaa, stage koowaad, stageka labaad wax yar ka dhiman. marka waxaan rajaynayaa inta kale ummadda Soomaaliyeed ku xiran janalkayga in ay usii gudbin doonaan asxaabtooda khaaliga si ay ula wadaagaan barnaamijyada aan halkan soo dhigi doono. marka waxaan leeyahay asxaabteyda khaaliga aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin inta i dhiirigelisay iyo inta social mediahaba qoraalada messengerka igu soo xoogaa ataagay oo qabiil ahaan maxaa la dhahaa nin aan dhahay hebel saas kuma habbooneyn, saan buu ka habboon yahay dhahay oo isoo ataagay baa jira, laakiin aan aqaano asxaabteyda ah. laakiin dhibaato ma leh, qofku muxaafad iyo mucaarad waa uu leeyahay, inkastoo mucaaradka uu iska yara badan yahay. laakiin waxaa aada u jeclahay inta aan asxaab leeyahay ayaa aada uga badan oo taageerta, garabkayga taagan, oo dhaho niho barnaamijka maanta ka hadashay waa barnaamij fiican. dad qaar ay dhahaan barnaamij hebel ma ka hadal, barnaamijkaas soo dhig. xataa saaxiibkay aan magaciisa carbaabayo daahir miiney oo ku sugan dalka talyaaniga oo aan reer Sweden isla nahay, wuxuu igu amaanay sida qaabka aan wax aan usoo dhigo, aanan qof ataag aanan ku sameyneynin. taasi aad ayaan ugu mahad celinayaa daahir. intaas kadib waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo wasiirka arrimaha gudaha dalka Kenya oo soo booqday maanta magaalada Muqdisho oona la kulmay madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. sidee u arkaan ummadda Soomaaliyeed in wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya oo maanta soo booqdo magaalada Muqdisho oona la kulmo madaxweynaha qaranka? haddii wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya uu aadi lahaa dalka Kenya, mucaaradka wax badan ayay sheegi lahaayeen oo xumaan ah oo ummaddu ay la yaabto, balse maanta ayagii ayaa noo yimid. soo meeshaas waxaa ka muuqda ifafaalo nabadeed, inkastoo Kenya aanan laga filanayn in ay faragelinta ka joojiso Soomaaliya, laakiin ma la isdhihi karaa way cabsatay oo micnaha xoogaa arrintii kululaatay bay dejinaysaa. yes of course, waxaa waaye dowladda Soomaaliya ma ahan sidii hore. dowladda Soomaaliya ma ahan mid lagu amar taagleyn karo, lagu samayn karo wax allaale wixii la doonayo in laga samaysto. ma ahan, way ka gudubtay, adduunka ayaa khiray, meel fiican ayay maraysaa. wuxuu wasiirka arrimaha gudaha dalka Kenya uu fariin ugu waday madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta salaan ugu waday, uuna soo gaarsiiyey salaanta, kadibna loona soo gudbiyey madaxweynaha casuumaad in uu yimaado dalka Kenya, ay meesha isku arkaan asiga iyo madaxweynaha dalka Kenya. taasina sharaf waaye, adigoo gurigaaga lagugu yimid, casuumaadna lagu soo fidiyey ka hor inta laisku soo diri jiray taleefano. taas marka waxay tahay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ammaan mudan yihiin,
soomaaliya ciidankeeduna ay istaageen, ayna u badan yihiin dhalinyaro waxgarad ah, intii dagaaladii sokeeye ay socdeen dhashay. alxamdulilah maanta meel fiican ayaa la marayaa. taageeradiina waa muhiim, taageerada ciidanku waa muhiim. inaad taageerto ciidanka qalabka sida waa wax loo baahan yahay, waa wax loo baahan yahay. weligiina waxaa waaye ha u fiirinina qabiil ahaan iyo ina adeer ahaan. nin walboo dareeska soomaaliya wata wuxuu xil iyo mas-uuliyad dusha iska saaray ay tahay in uu ammaanka qof walboo hooyo soomaaliyeed iyo wiil soomaaliyeed ama gabar soomaaliyeedoo habeenkii nabad ku seexanaysa in ha ogaato inay haysato ilaaliyo qaas ah, ilaahay ka sokow. marka sharaf weyn ayay tahay in maanta madaxweynaha gurigiisa lagu soo booqdo ay u tahay soomaaliyana guul usoo hooyato. laakiin midda kale mucaaradka waxaan leeyahay waa buunbuunin lahaydeen haddii uu maxaa la dhahaa wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya uu tegi lahaa dalka kenya. idaacadaha ma la kala nasan lahayn, balse waxaa waaye maanta tan inaad bogaadisaan isku daya. mucaarad waxaa loo baahan yahay markii dalku wax wanaagsan ay ka dhacaan, wax wanaagsanna muujiya. waxyaalaha qaladka ee dowladda ay ku dhaqaaqdo, inkastoo anaga aanan qirsannahay inay dowladda waxyaalo badan oo qalad ay ku dhaqaaqdo, laakiin waxyaalo kasii badan oo ay saxday ay jiraan, inaad ku taageerto ayaa loo baahan yahay. marka maanta waa wax aada loogu farxo in uu wasiirka arrimaha gudaha dalka kenya uu yimaado dalka soomaaliya si loo qaboojiyo xasaradaha ka taagan xuduudda dalka kenya iyo faragelinta qaawan ay nagu hayso kenya. soo anigu ma kala jecelin kenya iyo ethiopia, labada dalba waa laba dal oo cadow ku ah soomaaliya, doonayana in ay qaybsadaan dalkeena soomaaliya. ayadoona madaxweynihii hore ee kenya uu sheegay daniel armoy arrin ka dhexaysa ayaga iyo ethiopia in ay ku qaybsan doonaan dalkeena soomaaliya, laakiin taasi soomaali way ka diiday. haddii la rabo in soomaali la kala geeyo waxaa la kala geyn lahaa xiliyadii iyo qalalaasaha iyo dagaalada sokeeye ay jireen. inkastoo hadda ay soo istaagtay cagaheeda ay ku istaagtay, waxa adduunku inoo kala qaybiyey dowlad goboleedyo ku salaysan qabiil, kala qaybiyo u tali. soo ummaddeeda soomaaliyeed waxaan leeyahay, waxaan idinla wadaagay maanta dhiirigelinta asxaabteyda ay soo dhiirigeliyeen iyo booqashadii uu ku yimid wasiirka arrimaha gudaha dalka kenya ee soomaaliya, taas oo bogaadin weyn u ah dowladda qaranka ee soomaaliyeed. waxaana leeyahay, haddii aad ku cusub tahay janalkeena emras, waxaa si sharaf leh lagaga codsanaya inaad sii qaybiso, aadna subscribe noo saarto. wixii taageero ah ama dhiirigelin ah ama maxaa la dhahaa wanaag ah, waxaa noogu reebtaa commentiga. barnaamijkeena uu socon doonaa, mana istaagi doono. wax walba oo wanaag ahna waan ka hadli doonaa. sidaas ula socda. waxaana halkan soo gabagabeynaya barnaamijka yaraa aan ka hadlayay ee ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee dalka kenya oo soo booqday magaalada muqdisho iyo madaxweyne farmaajo oo casuumaad ka helay dhigiisa dalka kenya. waxaana idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.